كلمة ير وعن ربو إن مركز تمسك على أوريدو سراكيش عصب وربو إن هولكش دور جرنا وإذن شاقناي وعربنا إن ماكو كويسان إن وحنا قطان وأدامي اللي كل يايات قادان waxay ku xiran tahay sidii aad si taageeraan isugu xiraataan qofka xun isaga dhex qabataan mar la kastana aad idinku isugu xiraataan si aad u bedeshaan waa ogtiin caqabado way imaanayaan oo hadda shaqada waa ku soo aragteen meesha aad doontaan dad hubaysan baa jooga dhibaatooyin badan baa ka jira caqabado badan baa ka jira mar kastana waa inaad maskaxda ku haysaan deganaan si kalsooni leh idinkoo bulshada ka dhiganaya garab si cadaalad iyo daacadnimo leh na u shaqeynaya insha Allah annagu waxaan nahay ciidamada Puntland waxaan wax la qabnaa dawladda Puntland iyo waxalkeeda wixii aan wadanka hoolin inaan doonno xaq maaha haddana mar kasta wuxuu madaxweynaha iyo dawladda Puntland ba ogtahay inay idin dadaasho wixii la awoodo waxa hadda qaatan waxa idinku daro waxba la idinka hagran idinkana waxa la idinka fili karaa in aad kordhisaan dakhliga dawladda si aan wax fiican uga helo waxaan ku xulanaynaa saraakiisha dadku isku qiimo ma joogaan ama aqoontooda ha ahaato ama midkii tababarka ha ahaato annaga waxaan raacaynaa oo aanu rabnaa madaxweynuhu inuu idinku maamulo oo isagu khiyaarkiisa ku arko soo jeedintayada oo arko liiskiina oo galo interview gaar ah dhibcihiinii hore ee tababarka qofkii hore hadeer aan wax noqonna waxaan doonaynaa laftigiisa marka ciidamada cusub ay tababarka baxaan inuu noqdo saraakiisha wax ka maamulaysa qofkii aan isagu noqon qof liita laakiin waxaa idinka rabaa kuwa haddan wax noqday kuwa aan waxba helin iyagoo aan isxumayn si kalsooni leh inay iyagu la shaqeeyaan maadaama ay kulligiin isku xiran tihiin inaad wax noqotaan sidii qofka maanta wax noqdaa uu u muuqdo bay inta kale noqonaysaa waxaa aaminsanahay sidii aad ku soo gasheen ciidanka idinkoo hawada aynu ka heshiinay oo annagoo aan idin aqoon aa idinku soo abalgalayseen shaqadaan aqoontiina ku timaadeen hadeerna waxaa laidin maamulayaa annagoo qofka yaa tahay oran gobolkee ka timi ayda oran inuu madaxweynuhu arko liiska iyo soo jeedinta kabacdina uu dabagal ku sameeyo waxaan mas-uuliyadda isaga leexinay si kalsooni ay idinka idin gasho oo aad u aragtaan inaan laydin kala jeclaysan in aan laydin xaqdiyin inaan qofna la dulmiyin laakiin 470 qof madax ma wada heli karo waa xaqiiq idinkuna waxa rabaa in aqal ku salaysaan laakiin waxaan diyaar u nahay badi shaqada booliiska inaan hanataan qaybtiin aqoon dheeriya lagu sii daro oo dibadda ah in aad noqotaan maskaxda iyo awoodda sharci fulinta ee waddankan dhowrka sano soo noqota xitaa waxaan ku haminaynaa cidda ibtisha aniga inaad idinka noqotaan waxaan hubaa dadka qayb ka midii inay yihiin dad macno leh waxaan xusi karaa sida gabadha saldhigga dhex joogta oo kale samiiro oo marka hore aan ku fakaraynay in tababar dibadda loo diro laakiin waxaa noo soo baxaysa inayn hadda aqoon dheeri uga baahnayn lagana yaabee kuwo kale oo noocaasa inay idinku jiraan soddon ka mid ah dadka waxaa loo qorshaynayaa in dibadaha loo qaado si ay 6 bilood sanad iyo 2 bilood ka bacdi u noqdaan madaxda sarsare ee booliiska sida hoggaan taliya qayb iyo wixii ka sarreeya insha allahu tacaala waxaan idin rajaynaynaa guul annagoo u aragnaa qofku wacyiga inuu la qabsado kala qaybintiinna waxaa ka hormarin doonaa
tijaabo inaan madhaan 20 beri magaalooyinka kala ah Garowe iyo Gaalkacyo iyo Buurtille si aad u aragtaan wacyiga fursadna lagu sameeyo ciidanka kan joogay gobolkaas in la tirokoob lagu sameeyo taasna waxaa looga jeedaa kala qaybintu inay ka dhacdo idinkoo 20 beri qori ku shaqeeyay waardiye qabtay dad soo xirxiray dacwad qoray maadaama qof kasta la geynayo taliya saldhig